الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعن وراقسن داود للهانتينبا meel kasta daafaha dunida ka joogtaan. halkani waa kantaroolka magaalada Burco waxaana saaka u ambabaxnay magaalada Berbera ee gobolka Saaxil. Jaawada yeelana goostaaka hirtii hore ka soo ambabaxnay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. ayaanu safar gaaban iyo socdaal dheer ku soo gaala bixinay jidka dheer ee u dhaxeeya magaalooyinka Burco iyo Berbera. safarkan oo ay ugu heliyeen qaar ka mid ah howlwadeennada shabakada caalamiga ee Jarcan News ayaa ujeedka iyagu ahaa inaanu booqano magaalada Berbera ee gobolka Saaxil. intii aanu ku jirnay jidka dheer ee u dhaxeeya magaalooyinka Burco iyo Berbera ayaanu ahayn qaar isku madadaaliya murtida iyo miida ka soo maxatay maasayahanka Soomaaliyeed. halkani waa dowga buurta Sheekh waxaana u soo dalxiisaya daawasho taga dadka isaga kala yimaada degmooyinka iyo gobolada Soomaaliland. inkastoo aanu ku beeganay xilli abaar lagu jiro buurta Sheekh waa buur Ilaahay baadiye bilic ku manaysay waana barta ugu badan ee dalxiisayaashu u soo daawasho tagaan. waxaanu safarnay socdaal ku soo jirnaba ugu dambeyntii waxaanu soo gaarnay magaalada Berbera ee gobolka Saaxil. bartaas waanu ka bilownay barnaamij la magacaabay Batalaale iyo Boodari. xeebta Batalaale ayaa ahayd mid bulshadu si ballaaran u soo buuxdhaafshay kuwaasoo isugu jiray qaar horey u soo booqday magaalada Berbera ee gobolka Saaxil iyo qaar markaas ugu horeysay. badda ayaa iyaduna ahayd mid tuuraysa mawjada aad u xooggan taas oo khalkhal buuxda ku abuurtay bulshada baddaasi ku badalanaysay.
barnaamijkan la magacaabay Batolnala iyo Boodari oo aanu dalxiisayaasha mikrofoonka la dhex qaadnaya ayaa hamidaanu dareenkooda wax kaga weydiinayno iyo gobolada isaga kala yimaadeen. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ilhaantiiba meel kasta daafaha dunida ka joogtaan. halkani waa shabakada caalamiga ee Jaarc News. ugu horeyn adoo magaca ku bilaabay. marka gobolka waa ka timaado ka waran jawiga badda iyo sida loo dabaalanayo bariga faahfaahinaysa markana daawadayaal ku socda barnaamijkeena la magacaabay Batolnala iyo Boodari halkan waxaa taagan nin dhalinyaro ah oo ka mid ah dalxiisayaasha ku soo dalxiisay badda Berbera Batolnala oo magaca ku dhaafay magaalada Burco kale marka la eego Berbera waa gudaha ugu dhow magaalada Burco iyo sidoo kale caasimada magaalada Hargeysa sidoo kale kibaad aad inta badan badda waayo daawadayaal ku socda barnaamijkeena la magacaabay Batolnala iyo Boodari markana waxaan idin taagan wiil dhalinyaro ah adoo magaca ku bilaabay shabakada caalamiga Jaarc News sababta kaafo waxaad ka mid tahay dalxiisayaasha ku soo dalxiisay magaalada waxaan weli gudaha kaga jirnaa barnaamijkeeni la magacaabay Batolnala iyo Boodari halkan waxaa taagan koox dhalinyaro ah oo u soo dalxiisay magaalada Berbera ee gobolka Saaxil ugu horey walaal magaca ku bilaabay shabakada caalamiga Jaarc waxaan weli gudaha kaga jirnaa barnaamijkeena la magacaabay Batolnala iyo Boodari halkan waxaa taagan koox dhalinyaro ah oo soo dalxiisay magaalada Berbera ee gobolka Saaxil horey adoo magaca ku bilaabay shabakada caalamiga daawadayaal weli waxaan gudaha kaga jirnaa barnaamijkeeni la magacaabay Batolnala iyo Boodari daawadayaal halkan waxaa inagula sugan wiil ku soo dalxiisay magaalada Berbera oo magaca ku bilaabay shabakada caalamiga Jaarc
aad timaado magaalada berbera mise dhowr jeer hore kala kuwan jawiga maanta iyo magaalada berbera والله دي كانت عين بدأوا بيه وبعد بجري يعني ما تفكر سوى اللي markii aad timid caqabadaha kala kulantay wanaagsan iyo si wanaagsan والله في عم مطبوع تريتي تاينات طول لازم بالبلد daawadayaal waxaan dabaakibatinaa barnaamijkani la magacaabay batalaale iyo boodhari sidaad aragtaanba waxaa halkan igula sugan koox dhalinyaro ah waxaana ku sii shaqaynaa intii iyo gabagabadii barnaamijkan adoo magaca ku bilaabaya shirkadda caalamka sharci dalxiisayaasha ka kala yimaada magaalooyinka somalilan sidoo kale caasimada magaalada burco ceri gaabo iyo buurama kuwan jawiga maanta magaalada berbera maadaama tahay aad ka mid tahay dalxiisayaasha dalxiisayaasha berbera badan waqtigaaga waxaa ku sitaa badda
barnaamijkan lamaga baxay Batulaale iyo Boodhari ayaa ahaa mid ku saabsanaa laba qaybood labadaasi qaybood ayaa ahaa dhanka xeebta Batulaale iyo dhinaca kale oo ahaa Allah u naxariistay aabihii jacayl ee Cilmi Ismaaciil Libaan oo ku magac dheeraa Cilmi Boodhari balse daawadayaal waxaan oo suurtagelin inaanu barnaamijkaasi dhammaystirno iyadoo dhanka Boodhari iyo aabihii jacaylkaana ku guulaysan